بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دمان قدومك لبدا أقل برلمانك فدرالك الصومالية حبناها شرفت له برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية ككومن لبدا أقل مرت شرفته دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كقدار مدناش شرفت له وحا شرف ماموس وين مانتا anigoo gudanayo waajibkayga dastuuriga ah in aan si rasmi ah u furo kalfadhiga sideedaad ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Kalfadhigan oo ka mid ah muddo xileedka baarlamaanka 11aad waxaa xigi doona ilaahay idinkiis laba kalfadhi oo kale, kalfadhiga sagaalaad iyo kalfadhiga 10aad. saddexda kalfadhi waxay noqonayaan marxaladda lagu soo gunaanadayo waajibaadka dastuuriga ee u igmaday baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la xiriira sharci dejinta, korjoogteynta iyo matalaadda shacabka. Mudanayaal, furitaanka kalfadhi kasta oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ma aha oo kaliya bilowga howl baarlamaan, balse waa dib u soo cusboonaysiinta waajibaadka dastuuriga ah ee labada aqal ee baarlamaanka. waa fursad dib loogu xaqiijinayo kaalinta baarlamaanka ee hagidda jihada siyaasadeed, sharciyeed iyo dowladnimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Mudanayaal iyo marwooyin, maanta ma furayo oo kaliya kalfadhi cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaan furaynaa marxalad cusub oo taariikhda dowladnimada Soomaaliya ka mid ah. waa marxalad astaan u ah adkaysi aad hormuud u tihiin idinka oo ay gaartay dowladnimada Soomaaliya. waa maalin muujinaysa in Soomaaliya ay awood u yeelatay inay ka gudubto dhibaatooyin fara badan iyadoo adeegsanaysa hay-adaheeda dastuuriga ah. Mudanayaasha sharafta leh, marka baarlamaanku shaqaynayo waxaa shaqaynaya qarankii Soomaaliyeed. marka baarlamaanku go'aan gaarayo waxaa go'aan gaaray shacabka Soomaaliyeed. marka baarlamaanku ilaaliyo dastuurka dalka waxaa badbaadaya dowladnimada Soomaaliya. muddo dheer shacabka Soomaaliyeed waxay sugayeen in la soo afjaro marxaladdii dastuurka ku meel gaarka ahayd. waxay sugayeen in la dhammaystiro dib u eegista dastuur casri ah oo cusub oo la jaan qaadi kara dunida casriga ee maanta jirta ee ku salaysan dimuqraadiyadda. dastuurka waxay sugayeen in la helo hannaan doorasho oo dadweynuhu ay ku doortaan wakiiladooda. waxay sugayeen dadka Soomaaliyeed Soomaaliya inay yeelato sharciyo casri ah oo la jaan qaadaya dowladnimada casriga ah. waxay sugayeen baarlamaan ka shaqeeya mustaqbalka dalka halkii uu ku mashquulsanaan lahaa khilaafaad siyaasadeed oo aan dhammaad lahayn. intaas oo mas-uuliyaddooda idinka oo tixgelinaya ayaa waxaad noqoteen baarlamaankii qaatay mas-uuliyaddaas, isla markaasna xaqiijiyey gudashadeeda. waxaad noqoteen baarlamaankii dhammaystiray dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ahay. dastuurka kumeelgaarka ahay in ka badan 10 sano oo lasoo dhaafay, oo lagu dhiiran waayey, oo laga wada baqay, oo qof walba ay tiri muxuu ahay haddaad inta taabato ama xagga ka dhacdaa ama aad kursiga ku weydaa ama lagu soo dooran waayaa ama isku xigxigta, ayaad noqoteen baarlamaankii ku dhiiraday ee u horseeday Soomaaliya inay yeerato dastuur cusub. macnaha dastuurkaas cusub uu leeyahay iyo muhiimadda uu ku fadhiyo waa ka hadli doonaa. waxaan rabaa inaan si gaar ah u bogaadiyo geesinimada siyaasadeed ee runtii aad muujiseen ee ku saabsan arrinta dastuurka. waa hawl yar oo maalin uun gacanta loo taagay inay tahay ayaa dad badan u arkaan, laakiin ma aha. waa Soomaaliya oo jihadii ay u socotay iyo waddadii ay muddada dheer ku dhunsaneed laga soo weeciyey oo lagu soo weeciyey waddadii saxda ahayd ee mustaqbalka ay qaadi lahayd. mudanayaal, mar kasta oo ummaduhu ay dib u dhisanayaan dowladdooda waxaa loo baahan yahay go'aano adag in la qaato iyo geedi dhab ah in la galo oo la go'aansado in laga guuro meeshii hore la joogo. bartiis yaqaan bar uma korortaa Soomaalidu ku maahmaahay. xigmadii kale oo ahayday waxa aad suubi jirta haddii aad samayso waxaad heli jirto baad helaysaa. marka muddo dheer
oo 10 sano iyo dhowr ah ayaan soo joognay oo aan waliba waxaan rabaa halkan inaan si gaar uga xuso waxaan ku guul dareysanay ama aan kari weynay xataa dastuurka ku meel gaarka inaan ku dhaqanno dastuurka yaalo ku meel gaarka oo qoraya wixii uu qorayay ayaa meel inta la iska dhigo يا بنان كاس هالكاس بارلمان كان لا تشن حكومة لا ورسن حقاس انت لا تقف ضد انا بنديت وهين اني مصير مد قاميان مال اني فلسطين او اي قاميان او انت بدن بارلمان كان كل سو نقول تاس مرحله لغا سو غدبي يعني دستورك كميل غارك وحيابه بدن او مانت دستوركي كميل غارك وحيابه بدن او مانت سمينayna way ku qornaayeen dad badan waxay u fasirayaan dastuurka maanta waxaan inuu la soo dego cusub yahay dastuurka ma cusba dib u eegis lagu sameeyay waa la dhameystiray wixii is khilaafsanaa ku dhex jira waxay intii 15 chapter ka koobnaa 15 chapter ka koobayahay intii qodob ka koobnaa almost intii koobay laakiin waa la hagaajiyay duruuftii awal waa ku meel gaar loo yiri laga saaray duruuf aanu ku meel gaar noqonaynin ayaa la keenay waa marxaladahaas soo baxa dood adag in laga yeesho kadibna laga heshiyo waxaan soo ifbaxa kala duwanaansho aragti marka doodahaas lagu jiro ee masiirka ummadda laga doodayo laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay hay-adaha dastuuriga ah gaaraan go'aanka ugu habboon ee ugu dambeeya iyaga kaas ayaana sharci ah oo ummadda in loo wada hoggaansamo ay tahay sharcigaas meesha yaallo adinka oo go'aamisan oo gaarteen iyo annagoo maxaan ku rahaa dalka mas'uulka ugu sarreeya intaba meeshaan wixii gacanta loogu taagay ee lagu ansixiyay ayay tahay inaan u wada hoggaansano dhammaanteed sidaas awgeed waxaad muujiseen in baarlamaanka federaalka ah uu yahay meesha ugu dambaysa ee lagu xalliyo khilaafaadka sharci iyo siyaasadeed ee qarankan ka jiro haddii khilaaf siyaasadeed jira haddii khilaaf isqabsi yimaado intaa loo soo noqdaa maxaa shalay la ansixiyey maxaa shalay la sameeyey maanta sidee la yeelaa haddii qaanuun la isku qabsado هل بدل اللي يرادوا له رسل قرته ماشى واي ماشى اللي كيني اللي يقول بدله يدي بوجس يقول سمينه لكن بنانك قف جوجا إنه بدله مدحونا الجمهورية أنا ذكرت إنه بدله قانون جرا emergencies لو وحيابك البروفيشنال أو دستور بحين يواجهون لكن أنت المسؤول اللي أنا وحن حقه له هاي قانون قاسي أدي أو إلا ذا كان إلا ذي أو كان إلا آية القرآن ما هين إلا ذي أو كان أنا أنت ساق قرآن المسؤول ولي waxaad xaq u leedihiin maya ciladaha ma jiraan inaad dhahdaan oo meeshiisa ku dhaaftaan hab raaci oo sidaas lagu yeeli lahaa ayadoo la raacayo ama la bedelo sidaas daraadeed ribosid dastuurka waxaan leeyahay baarlamaanka federaalka waa meesha gobnimada qarankaani ay taallo waaye waxaan aad ugu faraxsanahay adinkana idinku bogaadinayaa inaad ku dhiirateen go'aano rag badan iyo gabdho badan oo halkan fadhiyo xildhibaano ah oo muddo dheer baarlamaanka ku soo jiray way garanayaan asbaabihii mar walba loo dhammaystiri waayo ee baarlamaanka dambe loo soo dhahayay waa wada garanaynaa maanta intaasaad ka gudubteen dastuurka marka macnaha uu leeyahay dhabta ah oo weyn waxaad caddayseen in dowladnimada soomaaliyeed aysan ku xirnayn shakhsiyaad balse ay ku tiirsan tahay hay-ado dastuuri ah oo shaqaynaya oo go'aanna gaari kara mudanayaal taasi waa astaan dowladnimo bisil waaye waa astaan jamhuuriyad dhismaysa waa astaan baarlamaan gudanaya waajibkiisii shacabka soomaaliyeed u igmadeen go'aanada noocaas ee la gaaray ama la gaarayo maanta aniga oo furaya kalfadhiga 8aad waxaa habboon inaan si cad u qeexo saldhigga sharci iyo dastuur ee uu ku furmayo kalfadhiga 8aad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya runtii in baarlamaanka federaalka soomaaliya uu sii wato xilgudashadiisa ma aha arrin ku timid duruufo siyaasadeed maanta kalfadhiga 9aad iyo kalfadhiga 10aad inaan u ballanno oon ka hadalnahay arrin duruufo siyaasadeed ku timid ma aha arrin maxaan ku raadahay dad iska jeclaaday inay meesha joogaan ku timid ma aha waa arrin ku timiday si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa geedi socod ku dhisan dastuurka iyo go'aanka hay-adda ugu sarreysa ee matasha rabitaanka shacabka soomaaliyeed halkan uu yaallaa rabitaanka shacabka wakiiladii shacabka halkan ay joogaan 20 milyan oo Soomaali ah
انت قول سوق كانوا قان غار لما دهي كرو لكن ددك اينا اديكا وكيل نغا نصيب درو ايدو سيداس اي تا ايا دد Soomaaliyeed waliba siyaasiyiin shacab maaha qaarkood ay go'aankii sidaas ay wakiilashadii ay soo wakiisheen dadkii ay soo wakiisheen oo fadhiyo oo go'aan u gaaray inay diidaan go'aankoodii ay wax ku tilmaamaan ondadan wax garan ku tilmaamaan nasiib darooyinka weli ugu dambeeyo laakiin mar dhow aan ka gudbi doonaa haddii alla yiraahdo waayo sidaas daraadeed kalfadhigan maanta furmaya ma aha keliya sii socoshada shaqo baarlamaan waa sii socoshada dowladnimada Soomaaliya waa sii socoshada geedi socodka dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waa sii socoshada himiladii ay shacabka Soomaaliyeed codkooda iyo kalsoonidooda idinku siiyaan baarlamaanka federaalka haddaad tihiin oo aad wakiil uga tihiin 4 sano ka hor Soomaaliya waxay taagneed meel ka duwan halka maanta ay taagan tahay waxaan ka soo gudubnay marxalad ay jireen hubanti la'aan siyaasadeed dib u dhac dib u eegis dastuur sharciyo badan oo muddo dheer sugayay in la ansixiyo iyo geedi socodyo qaran oo aan weli gaarin halkii iyo heerkii laga filayay inay gaaraan maanta marka aynu dib u milicsano 4 sano ee la soo dhaafay waxaa muuqata in Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin waaweyn oo dib u soo celinaya kalsoonidii shacabka iyo sumcaddii qarankeena oo adduunka ku lahaa waxaa la dhammaystiray dib u eegista dastuurka oo muddo ahaa waajib dastuuri ah oo laga gaabiyey waxaa la dhisay saldhig sharci oo qeexaya qaab dhismeedka dowladnimada Soomaaliya kala dambeynta hay'adaha dowladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale maanta leenahay hannaan doorasho oo casri ah kaas oo ku salaysan mabda'a ah in codka muwaadinku uu yahay saldhigga awoodda dowladnimo sharciga doorashooyinka qof iyo cod wuxuu maanta ka gudbay heer hindisa sharciyeed iyo dood siyaasadeed wuxuu noqday sharci dhaqan galay oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo malaayiin ay dhaqan geliyeen laguna dhaqay waxaana doorashooyinkii ka qabsoomay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tartanka doorasho ee hadda ka socda weli dowlad goboleedka Galmudug waxay cadeynayaan in Soomaaliya ay ka gudubtay xilligii ay doorashadu ku koobnayd heshiisyo siyaasadeed oo cid gaar ah yeelato waxaan u talaabsanay hannaan oo muwaadinka Soomaaliyeed codkiisa leeyahay qiimi sharci ah iyo mid sinaan ah taas waa guul dastuuri ah waa guul dimuqraadi ah waa guul ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed walaalayaal dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 13 degmo oo ka tirsan oo degmada Ceelbarde oo xuduudda Itoobiya ku taalo ka soo bilaabata oo soo gaarta degmada Marka iyo degmada maxaan ku raraa Baraawe oo badda Indian Ocean xeebteeda ku yaal inta u dhaxaysa ayay ka dhacday qof dilay ma jiro qof dharbaaxay ma jiro qof maxaan ku raraa wax u geystayna ma jiro astaan waay fariin waay marka laga tago tii xamar ka dhacday oo ayadana aad ogeedeen shalay mahana darad waxay ka dhacday doorasho galmudug doorashadii dowladaha hoose iyo tii maxaan ku yiraahdaa wakiilada dowlad goboleedka sidoo kale ayadana xeebta dheer ee Indian Ocean ceel dheer xara dheer hobyo gaalkacyo soo wareeji xuduudda Itoobiya cabud waaq so ayadana sidaas ay u dhacday waxaan filayaa xildhibaano badan oo meeshan fadhiyahay inay goobjoog ka ahaayeen oo ay joogeen cilad iyo ceeb ay yeelatay ma jirin waxaan rabaa marka inaan idin sheego hawshaas shaqada sharcigeeda aad soo ansixiseen xukuumadda iyo guddiga madaxa bannaanaa ee idinku aad samayseen ay dhaqan gelinayaan macnaha ay ku fadhido waa isbeddel siyaasadeed oo dalkan dib u habeyn siyaasadeed aan dhaho dib u habeyn siyaasadeed oo dalkan ka dhacaysa waa 1960kii markaan xorriyadda qaadanay 10 sano oo nala soo diyaarinayay oo talyaanigii uu soo diyaarinayay oo wax walba nidaam naloo dhisay ayaa dhaxalnay laakiin mid Soomaaliya ay ayada fikirkeeda iyo taladeeda iyo awooddeeda ku samaysatay ma ahayn walaalaheenii waqooyiga looga yimidna
marka laga reebo muxuu ahaa adjustment yar way nala qaateen dowladnimadii noocaas ahayd in lagu socdo 9 sano 2 doorasho markii lagu galay waad ogeedeen afgamigii dhacay intii ka dambeysay 20 sano iyo 36 sano hadda mareen 57 sano sanadka 58 hadda la sii galaya Soomaaliya dib u habeen siyaasadeed oo dhab ah weli kama dhicin maanta ugu horeysa waxa adigu aad go'aamiseen iyo go'aanada aad halkan ku gaarteen waa dib u habeen siyaasadda qaranka ee Soomaaliya oo dhan dib loo habeeyay wadadii 1969 Soomaaliya ay ka dhuntay ee 57 sano ay ka soo wareegtay ayaa go'aamisay in Soomaaliya wadadaas dib loogu celiyo oo halkaas ka jaan qaado waa wado furan oo aan ku carari karno oo aan uga daba tegi karno qaybkeen wadooyinkii hore aan ku soconay ku meel gaarnimada iyo doorashada dadban iyo waxa la midka ahay jadda duurka cidlada uu wada lahayn annagoo marayna waa weligeen asaageen kaba daba tagneen laakiin maanta asaageen intaan ka daba tagnaan muddo gaaban ayaan dhaafi karnaa lianna wada furan oo la wada yaqaano adduunyada taqaano annagu aan naqaano sharciyo leh meesha ka qaldan tahay iyo meesha ka saxan tahay aan garanayno ayaan qaadnay intaas ka bacdi tallaan kasta oo aan qaadaynaahi midii ugu saxsaneed ee ugu quruxda badneed ma tahay maya laakiin maxay tahay waa midii loo jeedinaysa jaadi saxdeed aan ku dhammaystir lahayn saxnimada waan bilownay bilow kastana maxaa la dhihi jiray wiil dhashay ma dhaamiyo wiil inta dhasho beri inuu reerku u dhaamo lama heli karo nidaamka nidaam dhashay waaye sida si ugu fiicneed uu ku dhashay wuuna barbaarayaa wuuna horumarayaa muddo kooban oo gaaban weliba Soomaaliya waxay caam ku tahay muddo gaaban in ay ku gudubto dhul dheer oo ummadaha qaarkood sanada ku qaatay inay ku gudbaan mataal yar waxa uu ah magaaladeena caasimadda ee Soomaaliya Jabuurida sida ay muddo 2 sano ama 3 sano u badnaana u dhisantay 60 sano 70 sano magaalooyin caasimada adduunka ka jira u dhismira u muuqanna dadka Soomaaliyeed oo idin wakiilka u tihiin markaad fursad siisaan xawli aad u dheer xawaara aad u dheer ku gudbi karaan dhibaatooyinka iyo jidadka dhibaatooyinka loo dhan sidaas daraadeed mudanayaan 4 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin muuqda oo dib loogu dhisay awoodda qaranka waxaa la xoojiyay hay'adaha dawladda waxaa la casriyeeyay nidaamka maamulka maaliyadda iyo amniga waxaa la ballaariyay adeegyada dawladdu ay shacabka siiso weli inkastoo meeshii aan la rabnay inay gaaraan aanay gaarin haddana maanta wiil Soomaaliyeed cunug Soomaaliyeed gabar iyo wiilba ayaa iskuul aada bisha $20 oo fiiga ah keen aan la lahayn wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed ayaa jaamacad aada oo semesterka lacagtiisa keen aan la lahayn intii la rabay ma tahay maya weli waa noo dhiman tahay in badan aan fursad waxbarasho helin in badan aan fursad jaamacadeed helin laakiin jidkeeda ayaan ku jirnaa jamhuuriyadda Soomaaliya 1970 meeyadii ayaa waxa ay yeelatay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan dadka aniga iyo jiilkayga ah iyo kuwa iyadoo ay ka soo baxeen wax ku barteen maanta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed way shaqaynaysaa aad iyo aad ayaan ugu farxaa gobolada markaan tago oo injineer iyo dhaqaatiir jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka soo baxay dhahay markaan arko maanta marka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay sameynaysaa jaamacaddii labaad oo public ah ayaa la furayaa hal jaamacadaan qabnay muddo dhow ilaahay idinkiis 2 jaamacadood oo public ah oo kala duwan ayaan yeelan dalku yeelan doona haddii aan la yiraahdo taariikhda ayadana waa markii ugu horeysay oo dalku 2 jaamacadood oo public oo yeesho kuwa fara badan oo private ana waa leenahay oo ayaguna aad u wanaagsan oo shaqo fiican haya sidoo kale walaalayaal waxaa la dardargeliyay dib u habeynta hay'adaha garsoorka iyadoo markii ugu horeysay taariikhda dalka la hirgeliyay nidaam suurto gelinaya in dacwadaha maxkamadaha ka socda toos oo maqal iyo muuqaal leh looga daawado telefishinada dadka Soomaaliyeed ay arkaan qofkan meesha taagan waxa lagu soo eedeeyay
xuquuqda ay lahayd oo inay iyadu isdifaacday in la difaaca inay heshay eedaynta lagu soo eedeeyey nooca ay tahay asbaabta markhaatiyaasha ama la keenay dadku lafsadooda ay arkayaan oo ay yihiin garsoorayaal ay ka yihiin laftooda tallaabadaasi waxaan uga dan lahayn in garsoorka Soomaaliya kalsooni uu keeno waa rajaynayaa garsoorka shalay meeshii uu joogay maanta ma joogo weli laakiin wax badan oo la sii saxa ayaa noo wada dhiman haddii alla yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin 4 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay horumar la taaban karo ka samaysay dhinaca amniga iyadoo si weyn loo dardar geliyay la dagaalanka argagixisada kooxda al-shabaab iyo Daesh laguna weeqay awoodoodii lagana xoreeyay deegaano badan oo hor leh waa run dagaal haddii la galo goob dagaal maalin waa lagu kala guuleystaa maalin waad ku guuleystaa maalin waa laakiin maanta waxaan leenahay ciidan kalsooni badan isku qaba oo kaligiis howlgala socda oo aan laga soconin oo kaligii inta dhaqaaqo howlgal sameeya ku guuleysa ka soo waxaan leenahay wiilal Soomaaliyeed oo dhiiran oo muwaadiniin ah oo u istaagay fahmay dalkan inaanu mudnayn iyo ayaguba inaanay mudnayn inay ku hoos noolaadaan dalada argagixisada dowladda Soomaaliya dagaalkaas ay gashay caalamkay la kaashatay argagixisanimadu waa qadiyad caalami ah qadiyad local ah ama nasharan ma saaxiibada Soomaaliya iyo Soomaaliya iskaashanayay aad iyo aad ayaa hoos loogu dhigay awoodii al-shabaab in badan oo hoggaankoodii dhaxa ah ayaa ka baxay wadada ma jeclin Soomaali dilayo howshiisa inay sii socoto laakiin nimanka argagixisada ayaa duruufahaas keenay oo nagu qasbay haddana intaa waano iyo caqli cilin ayaan la daba taaganahay inay meesha ka soo baxaan waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo noqonaysa maalin walba shabaab oo aad iyo aad tiradooda u soo badanayso dhalinyaradaas oo si fiican loo qaabilo inaad qaadkood aragteen waa laga yaabaa isla muddadaas waxaa la sii xoojiyey dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha amniga qaranka ayadoo kor loo qaaday tayada tababarka hogaaminta isku duwidda iyo awoodda howlgalka ee ciidamada qalabka sida si ay si buuxda ugu gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee ilaalinta amniga difaaca madax bannaanida midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wax kasta oo aynu gaarnay weli ma aha dhammaadka safarkeennii dowlad dhiska saan u sheegay wax kastoo aan gaarnay weli meel ka sii fiican oo lasii gaari karo oo noo dhiman ayaa jirta waana gaaraynaa ilaahay idinkiis laakiin waa bilow wax kastoo aan samayna waa bilow adag oo lagu dhisayo jamhuuriyad awood leh haddaanan ciidan qalab sidoo awood la aanan helin haddaanan dhaqaale nagu filan annaga oo aan kaga maaranno baryada aanan helin haddaanan helin saldhig sharciyeed oo adduunyadu ay nagula macaamisho oo adduunyada ay nagu maalgashato oo adduunyada ay aqoonta noo keento xoolaha noogu keento sharcigeennay fiirinay sharcigeennu markuu toosan yahay oo nidaamsan yahay oo casri yahay adduunyada xoolaheedana way noo keenay aqoonteedana way noola imaanay waana sida ummadaha iyo dowladaha adduunka ka jira ay ku horumaraan taas meeshii buddhiga u aheeday ay ka soo burqanaysa waa halkan haddii alla yiraa marka kale dhinaca aan ku sii socdo kooxda al-shabaab maanta waxay ku jiraan marxaladii ugu adkayd tan iyo markii la aasaasay waxaa si joogto ah hoos ugu dhacaya awooddoodii ciidan dhaqaale iyo saameyn bulsho dowladda Soomaaliyeed waxay sii wadi doontaa dagaalka lagu wiiqayo laguna cirib tirayo kooxda ilaa shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan nabad xasilooni iyo kalsooni ay ku qabaan dalkooda iyo dadkooda ay ku waaraan sidoo kale ciidamada qalabka sida maanta waxay ka tiro badan yihiin shalay kana tayo sareeyaan shalay xilli kasta oo ay soo mareen maanta ayay ka tiro badan yihiin kana tiro sareeyaan kana maxaan ku raadayay niyad iyo qalbi san yihiin walaalayaal mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee 4 sano ee la soo dhaafay
وإسبدل ككوي مدي سياسة أرمها الدبادة جمهورية فدرالك الصومالية مددير صوماليا وحي الدل انت بدن laga hadlo oo magac iyo muuqaal ahaan kaliya u jira maanta Soomaaliya waxay noqotay dal hadla iyada waxay ahayd dal lagu go'aamiyo masiirkiisa meel ka baxsan xuduudihiisa isaga oo maqan waliba aan miiska fadhiyin maanta waxay noqotay dal ka qayb qaata go'aanada khuseeya gobollo iyo caalamka intiisa kalaba codka Soomaaliya maanta waa cod la maqlo aragtida Soomaaliya maanta waa aragti la dhageysto danta Soomaaliya maanta waa dan ay dawladda Soomaaliyeed u fadhiso fagaaraha lagu xisaabtamayo wax lagu wadaagayo talada lagu wadaagayo hoggaanka adduunka hoggaaminayo ee adeeysa lagu go'aaminayo Soomaaliya way fadhidaa codayna ku leedahay maanta afartii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay dib u soo ceshatay maqaamkeedii diblomaasiyadeed xiriiradii aan la lahayn dalalka gobolka iyo kuwa caalamka waxay maanta ku dhisan yihiin ixtiraam iskaashi iyo dan wadaag Soomaaliya maanta ma aha dal gargaar kaliya codsada waa dal fikradiisa la dhageysto mowqifkiisa la tixgeliyo taasna waxa cadayn u ah kaalinta muuqata ee aynu ku leenahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka iyo nabadda ee ururka midowga Afrika oo labadaba aan xubin ka nahay amniga Soomaaliya meeshii laga soo go'aami jiray maantana weli taladeeda lagu hayo ayaan fadhinaa waxaan noo dhiman waxay tahay kaliya meeshaas inaan ka dhowrno in amnigeena lagu go'aamiyo ama looga hadlo inaan ka bixin shalay anagoo maqana looga hadlayay maanta anagoo fadhinaa looga hadlaa berri anagoo fadhino oon looga hadlaynin ayaan rabnaa inaan soo gaarno waana gaarayna insha Allah waxaa sidoo kale ku guulaysanay in aan si tartiib ah uga gudubno dhaqankii ku tiirsanaanta gargaarka dibadda una jahaysano soo jiidashada maalgashiga iyo ganacsiga caalamiga ah iyo iskaashiga dhaqaale ee ummadaha ka dhaxeeya himiladeena waa Soomaaliya ku taagan wax soo saar maalgashi iyo kobac dhaqaale oo xoolo ku socda halkii ay ku tiirsanaan lahayd mar walba gargaar aan caalamka weydiisanayn marka ay timaado arrinta duulaanka Israa'iil ee dalkeena si cad ayaan u diidnay maanaan qarin fagaarayaasha adduunka oo dhammaan la taagannahay dadkeennana waa u sheegay Israa'iil fitnooyinka jira ee adduunkay ka mid tahay nasiibkeennu wuxuu ahaa fitnadaasi waa naga fogeyd nimankii fitnadii inta soo qaadeen hadda ay noo keeneen suurtagal maaha marka colaadda iyo dhibaatada maxaan ku raadayay qarni ku dhawaadka ka jirta bariga dhexe ingiriiska Afrika la keenay si sahlan maaha waxay doonto dadka u sheegto temporary way muddo kooban way waa ka guurina baraan ka tagina waxay doonto ha dhacdo meel ay tagtay weligeed kama tagin Golan Heights Suuriya 1967 ayay tagtay weli waa joogtaa kama ay tagin Sinai sidaasoo kale way qabsatay xoolaha looga saaray kama ay tagin dabeecadda Israa'iil iyo taariikhda akhriya meeshay tagto kama tagto meeshaas inayna deginaan rabnaa anaga waxaan ka shaqaynaynaa xoog iyo xeelad iyo diblomaasiyad iyo maxaa iskaashi caalami ah inta aan leenahay oo dhan waxaan u isticmaalaynaa Israa'iil meeshaas inaanay degin wax dan ah oo ummadda Soomaaliyeed ugu jira ma jiraan wax dan ah oo deegaankaasi ugu jira ma jiraan wax dan ah oo gobolkan geeska Afrika ugu jira ma jiraan iyo maxaa badda cadmeed iyo badda cas intii ka dhaxlaba sidaas daraadeed
mar walba Soomaaliya cod dheer iyo cod gaabanba way ku leedahay Israa'iil ha naga baxdo waxaan mar kale cadaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin hal ummad oo wadaaga diin af dhaqan iyo taariikh dad badan oo siyaasadda dadka falanqeeya ama muxuu ahay aqoon-yahanada cilmiga siyaasadda barta waxay yiraahdaan intaas haddaad tihiin maxaa federaal u noqoteen waana la weydiiyaa federaalka dad kala duwan kala diin ah kala af ah kala muxuu ahay jinsi ayuu isku hayaa wixii isku keeni lahayd waa leedihiin maxaa u noqoteen haddana nidaam siyaasadeed oo maalmaha ka mid ah lagu heshiiye waaye wixii lagu heshiiyena inaan dhoofno oon xushmayno ayaan maxaan ku iraaday annagu waajibkana saaran uu yahay dastuurkaasuu ku qoran yahay wixii dastuurka ku qoranna waa ilaalinaynaa horeyna waa u ilaalin ayadoo jirinaan samaynay haddana waa dhaqan gelinaa ummadda Soomaaliyeed inayna maslaxa ugu jirin hadday ayadu aragto biri ay ka timaado iyo haddana si kale u heshiisana waxaas kale oo haddana ku heshiisa haddana yaa la ilaalin doonaa haddii alla yidhaha ma jiri karo isku day cadow dibadeed oo aan kala qaybin kara isku day cadow dibadeed oo kala qaybin kara shacabka Soomaaliyeed balse waxaa geed dheer iyo mid gaaban intaba u fuulaynaa sidii aan isku qancin lahayn walaalaheenna khaasatan gobollada waqooyi Soomaalidu waxay ku maamaadaa caloolo waxay ku bukootay laguma daaweyn muddadii jamhuuriyadda saddexaad ay jirtay gobollada waqooyi maalinna ciidan iyo abaabul ciidan iyo halla guuraa laga kor degto lama dhihin laanna ciidan iyo colaad meesha ay joogaan maanta wixii geeyo waay waxaan rabnaa wada hadal wada xaajood wax kasta qiimi kasta oo aan midnimada ku heli karno ayaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya diyaar ka ah waxaan diyaar u ahayn in dhig la daadiyo qiimigaas aan diyaaran u nahay aan leenahay waa bixinaynaa inaan dhig la daadiyo kuma jirto laakiin power awoodnimo midnimo wixii lagu wada jiray sharafta iyo haybadda iyo karaamada ummadnimo ee la wada leeyahay wada wadaageeda wada lahaanshaheeda xukunka iyo awoodda wada lahaanshaheeda intaas oo dhan ayaa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay diyaar u tahay mudanayaal iyo marwooyin waxaa jira arrin aan doonaya in aan si gaar ah idinku bogaadiyo maanta taariikhdu ma xasuusato oo keliya hay-adaha sameeya isbeddelka laakiin waxay si gaar ah u xasuusataa hay-adaha dhammaystira ama sameeya wixii la samayn waayey hogaamiyayaasha siyaasiyiinta waxaa lagu xasuustaa ay ku caanbaxaan inay sameeyeen wax la samayn waayey inay gaareen go-aan horey loo gaari waayey inay la yimaadeen fikir horey loola imaan waaye waa midaasaa midda qofka siyaasiga ah macno u yeeshay kan qoraa qaatahay weligiis xumaana lagu xasuustaa wanaag laguma xasuusto nin qoray qaatay oo jadda galay asoo siyaasad raadinayo weligii siyaasi fiican ma noqon taariikhda dib ugu noqda nimanka inta soo jabhaday xukunka jabhadnimada ku qabsaday oo dhan dib ugu noqda meeshii ay dalka ku dambeysiyeen iyo ayaguba meeshii ku dambeeyeen qoraga caaradiisa iyo dhiig la daadiyahay xukun laguma gaaro waa lagu ilaaliyaa haa la dhahaa xukunka waa lagu ilaaliyaa cadawaa looga ilaaliyaa xumaana looga ilaaliyaa qabdaro dhammaa looga ilaaliyaa waa meeshaas meesha la yiraahdo dowlad marka la sheegay la yiraahdo waa awood xoog sharciyeysan waay xoog iska socda oo maxaan ku raadaaye qubulduliis wata ma xoog sharciyeysan waay mandate la waay loo igmaday inay waxaas dhowraan loo igmaday saas hadday timaado inay saas ku dhaqmaan loo igmaday ilaa xaddigaasaa dhaqmi kartiin saas ku dhaqmi kartiin ka bacdi ma dhaqmi kartaan loo igmaday waay cadaadis awoodeed oo sharciyeysan yaa marka la sifaynayo yaa lagu sifeeyaa dowladnimada sidaas daraaddeed dhammaanteen haddii aan nahay madax heer qaran ah iyo haddii aan nahay madax heer goboleed iyo heer degaanba waxaa ummaddeena nagu xasuusan doontaa allana nagu abaalmarin doonaa
inaan ummaddeena u gaarno go'aano sax ah inaan ummaddeena u gaarno go'aano qaraar adag dadka qaarkiis ka baqaan oo ay dib u durkaan taas waaye midda saxda adoo niyadaadu san tahay oo Soomaaliya meel fiican inaad u wadid rabto go'aan haddaad gaarto hadda waa sidii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo sheegay haddaad asiibtana waa kaa haddaad asiibi weydana waa kaa yacni marna xumaan iyo shallayti kuma jirto waa marka niyadaadu ay san tahay ee aad iska tuurnimo maahane daraasad iyo xog ogaalnimo intaad raadisay sida si ugu fiican oo ummaddu maslaxadeeda ku jirto inay sidaas tahay waxaa laydinku xasuusan doonaa in taariikhda aad ku gasheen in aad dib u habeyn dhab ah ku samayseen nidaamka siyaasadeed ee dalkan una horseedeen Soomaaliya dib u hirgelinta dimuqraadiyadda 57 sano 58 sano ka hor ka luntay waxaan bogaadinaynaa dadka himilooyinka noocaasa nala qabay ama nooga horreeyaba oo horteena dhaqan geliyey doorasho qof iyo cod ah dimuqraadiyad qof iyo cod ah ama heer degaan ha noqoto ama heer gobol ha noqote runtii aad iyo aad ayaan u ammaanaynaa waana ku daysanay guddigeenna madaxa bannaan ee doorashooyinka ee halkan aad ku ansixiseen markii ay shaqo bilaabeen waxyaabihii ugu horreeyay waxaan rabaa horta inaan idiin sheego guddigaasi hal qof oo khabiir oo ajnabi ah lama shaqeeyo hal doolar oo ajnabi jaa nooga timidayna ma isticmaalin aqoon Soomaaliyeed xoolo Soomaaliyeed yaa isku timid maxaa ka mid ahay aqoonta Soomaaliyeed isku timiday inay u yeerteen rag badan oo khubaro ah oo doorashooyinka soo dhaqan geliyay مثلا Somaliland rag doorashooyinka soo dhaqan geliyay guddigeedii doorashooyinka ka tirsanaa jiray shaqada soo qabtay iyo inta u yeertaan inay yiraahdeen waa maxay Soomaaliya dhibaatooyinka iyo caqabadaha aad la korteen maxaa ka mid ah oo ay muddo dheer la fadhiyeen tala siiyeen wax la saxeen u soo noqnoqdeen fikir Soomaaliyeed iyo tala Soomaaliyeed ay waa ku faanaynaa maanta waxay ma samayn karaan ma yeeli karaan ma qaban karaan dhaqaale uma helayaan maxaan ku yiraahdaayay muxuu ahaay aqoon uma laha waa jeclaa lahaay in badan oo idinka mid ah inay tagaan guddiga xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee fadhiya ee meeshaas ka shaqeynaya inaad soo aragtaan aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeynayaan iyo sida ay u taageen 24 saac shaashadaas ay u eegayaan oo ninka marka ka codeynayo iyo kan hobyo ka codeynayaba ay arki karaan u muuqdo kan faraha looga qaadayo xeeldaar iyo xaradheere ay arkayaan oo u muuqdo in walaal gacanta si qalad u saaray si fiican u saarna gacanta ee halka ka hagayaan aqoontaasi nalaguma kaalmayn nalama siin nalagumana garab istaagin inta naloo yimaado la fiiriyo oo shaqo fiican ay siin la yiraahdo oo laga tago way dhacdaa laakiin maxaa idin la qabanaa inta la yiraahdo waxaan u baahnaa nalala qabto ma ayan dhicin dhadhan gaar ah ay leedahay marka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel gaarka ahay waa naloo sameeyey ama waa nalala sameeyey markii ugu liidano waa nalala sameeyey meelaha qaarna waaba naloo sameeyey kan dib u eegista hadda ka soo baxay maanta aan leenahay annagaa iskale khubaradeenaa sameeyey xildhibaanadeennaa ka dooday shacabka Soomaaliyeed ka dooday oo si physical ah uga dooday si online ah uga dooday waxa aad leedahay sidaas ay dhadhan u leeyihiin caalamka uu garab istaagay waa uga mahad celinaynaa abaalka dhacmaahin abaal weyn ayaan u haynaa laakiin waxaan soo gaaraynaa waxaan qabsan karnana inay soo kordhaan baahida caalamka u qabnana inay sii gaabato waana sida adduunyada ay u nooshahay ee caalamka dhan uu dhaqmo mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan cusub waxaa in hor yaalla mas'uuliyado waaweyn oo aan dib loo dhigi karin waxaan idinka rajaynayaa inaad mudnaanta siisaan dhammaystirka dhammaan hindisa sharciyeedyada ee gudoomiyaha hadda ay ka dhawaajisay iyo kuwa kaloo badan oo imaan doona kuwaas
waxaa sidoo kale idin hor yaalla ansixinta heshiisyo caalami ah oo muhiim u ah danaha qaranka Soomaaliya. waxaa idin hor yaalla oo halkan baarlamaanka hindisi sharciyeedyo golaha wasiiradu idin soo gudbi doonaan oo number fiican leh. waxaa kuwaas oo lagama maarmaan u ah sidii loo sii amba qaadi lahaa dib u habeynta dowladnimada iyo hirgelinta dastuurkeena. sharciyadeena dhan oo hore u jira waa inaan la midaynaa dastuurkeena oo ay la jaan qaadi karaan dastuurkeena cusub, qodobadiisa iyo oraahdiisa iyo qoraaladiisa. waxaan rajaynayaa in fadhiga 8aad iyo 2 kal fadhi ee inoo harsan ee 9aad iyo 10aad ay noqdaan kal fadhiyo lagu dhammaystiro shaqooyinka harsan, laguna xaqiijiyo dhammaan hay-adaha qaranka ku shaqeeyaan saldhig sharci oo dhammaystiran oo awood leh. mudanayaal, howlahaasi waa waajib dastuuri ah, waa waajib qaran, waa waajib taariikhi ah. walaalayaal, Soomaaliya maanta waxay taagan tahay isgoys taariikhi ah. waxaan ka soo gudubnay marxaladdii burburka, waxaan ka soo gudubnay marxaladdii ku-meelgaarka, waxaan hadda ka gudbaynaa marxaladdii hubinti la'aanta siyaasadeed ee dastuurkeena maanta uu caddeeyey. waxaan u gudbaynaa marxaladdii doorashooyinka, waxaan ka gudbaynaa marxaladdii doorasho dadban, waxaan u gudbaynaa marxaladdii dhaqangelinta doorasho qof iyo coda oo dimuqraadi ah haddii la yiraahdo. waxaan maanta dhisaynaa dowlad rasmi ah oo leh dastuur, hay-ado sharci iyo hannaan doorasho oo dimuqraadi ah. hase yeeshee taariikhdu waxay ina bartay in mar kasta oo Soomaaliya tallaabo hore u qaado ay jiraan xoogag isku dayaya inay dib u celiyaan. Soomaalida maxaa la dhihi jiray waayeelku maalintii u cabsadaa, caruurtana habeenkii cabsataa. waxaa hadda qarniga 21aad waxaa jiro dad aan cabsanayn oo dhiiran, colaadda aan cabsanayn, nabadda markay timaadana cabsanaya, horumarka ka cabsanaya, talada waa la wada leeyahay ka cabsanaya, danta shacabkaa sidaan u taallee taada meel dhigo awooddeeda aan kari karin. waxaa jira kuwo aan rumaysnayn dowladnimadeena, laanna ninkii sharciga aan rumaysnayn dowladnimada ma rumaysna. ninkii sharciga aan ixtiraamaynin dowladnimada ma ixtiraamayo. kuwo aan rumaysnayn hay-adaha qaran, waxaa jira kuwo aan rumaysnayn in shacabka Soomaaliyeed ay tashadaan aayahooda iyo hay-adahooda dastuuriga aan u tashadaan. waxaa jira kuwo doonaya in Soomaaliya ay weligeed ku sii jirto muran, kala qaybsanaan, hubinti la'aan. waxaa jira kuwo u arka xasilooni darrada Soomaaliya inay tahay fursad ay ku gaaraan dana siyaasadeed ama dana dhaqaale. walaalayaal, markhaatiyaad ka tihiin mar kasta oo Soomaaliya caqabad ay ka gudbi tagtaba dadaa jira niman odayaala inta isku yimaado officially warqad rasmi ah qora, cunaqabataynta ha nalaga qaado. dowladoo dhan markay u qaylinayso kuwaa qoraya yaa nalaga qaado, Soomaaliyaana yaa nalaga qaado. hubaan soo garanaynaa, waa islaaynaynaa, waa isdilaynaa, yaa nalaga qaado. deynta ha nalaga cafiyo. markaana kuwa dhahay maya yaa nalaga cafinin, dowladdan oo xasan sheekh madaxda ka yahay deyn horna ay dalka gelinaysaa, deynta haddana nagu leeyahay 3 jubaarkeedaan beymoobaynaa, yaa nalaga cafin. yacni maalin walba markaan hore u dhaqaaqi tagnaba nin mas-uul sheeganayo. waxa fiican waxaa yahay gabdhaha laguma hayo weli ragga odayaal ah oo mas-uuliyiin sheeganaya in ay maalin walba Soomaaliya jidku taagnaadaan. inta looma dhaqaaqay oo wax dhan oo ka gudbila shakhsi qofay ka gudbilaayeen. isagu waa qof, institution ma rabo. waxa uu ku dhowey haystaa waa qof, madaxweyne, wasiir, xildhibaan, guddoomiye baarlamaan,
gudoomiye dowlad goboleed qof uu haystaa qof uu ku dhegan yahay war siyaasadda Soomaaliya qofaynta aan ka bixin waa loo dhisan soo lahaan jiray dagaal oogaa la dhihi jiray hogaamiye kooxeed soo lahaan jiray hogaamiye kooxeed inay institutions ay lahaayeen ayaa garanaya nidaam ay lahaayeen oo degan ayaa garanaya maanta in qof yiraa marka aniga waay sharciyad ma leh inuu samaysto ma ogola xataa heshiis beenbeenay dhexdooda inay samaystaan ma ogola sidee shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay arkaan mucaarad وارون سياسة واحد معارض ويالنا معارض لكن وحق ليهين إن أركان معارض حنبارسن أركتية سياسات أو كدول مدة مركز أو معارضين مدة أنا جرتو وحنتهاي تانا قبا أنا أو كفي عن هلا يلفيني لا غلط دول لا قاطو سيدا غبا هدي أد محنكو إرادة أد رأيك كلا أذن قاعدة كريم كادنا على قاعدة ماي وأنا أقبل كرتا وأبتين هل كان محنك إلى هذا رأيك أن كان أنا لقوا معي ضلكو مدحوين مدحوين كحجان هلا دورته أن أقول ماشاس هايبريد كان أن لقرن أن كقول سوم بالسوق عي وضل باير ورما فينا نقدر نعرف ما سيدان ما مركز وحنا قاعدين سان كان هذا اسكت عرفنا ما لو ذجريا هاو لو ذجريا بس واحد عرفنا هلا يا مركي أنساس أهلنا قارا يرمي تسمع هنا هذا قدام سين هذا مجرى قف حق له إنه داوعه هي أداة دستورية سيء وجاردن سياسة أو كبر مجرى قف حق له إنه شعب كصوماليين أورسيد قلالات جوكته السبب أو أديك سنة بين أبو مرين حبابين أما فرقليش الشيء قبل قوته أو إيماني وأنا سيدر رق أضيارة إني جاكدا يتعيد وحرتان إن أيدنا أجنبي الصومالية كفليان أو عن دم الدنيا دنا واسكو دحجران دنا أجنبي الآن ملي لكن الصومالية دم مقطع دن صومالية بكجرتها أجنبي تيس من أوبر برتالله أو تنادو أسوأ ولا أنا ما تنا كيريناي تيسا أو قلنا ستين أي نوع مرتب ملنا ما سبتنتا أرد على القرار سو سمي دلك سودومي كسودومي وكتاجرنا سياسيين أديك كتاجرنا هو وحن لا يا قوة دونية إن الشعب كان يجيبيان حكم دونته يعني إذا جالسين إن الصومالية كل فيسان ما إن تعدليته وقان جاري كريم وحبا عن قبسة كريم مال عن مري كريم مرور بينات كل فيسان والليدنا هم إلى شكر دينت إسكما وحكر ما مركرنا العقدين ما قد عكر سياستنا نقولين هم يشكر أنا نوير دي بدأ أنا لقوعه أنا لا ورهنا لا يمارن والبا إن أنكو هذا نصح معه ما أنت ويكون أكسن تاي مدي آد حن لا هاي نمك قضياشة سياسيين تا شاغنا إن معارضين ما مرك قاركون الديدة معارض كان إنه جرحته وردان كان ضد بدنا جوج رأي الودلية هذه الكلمة بعيد ما هي أنا معارض أنا قلنا بس دولة أنا قلنا على هذا الكرتا عد كلا لما هذا الكرتا وصان سمعها وحان لا هاي ضد كانوا هاي سويديان فرق قاعد حياة الصومالية الشرعي odayaasha maanta mucaaradka ay xukumayeen iyo Soomaaliya maanta hal isku fiiriyo dib loo eego maanta waxaan dib u soo ceshanaynaa haybadii dowladnimada amnigii dimuqraadiyaddii iyo sumcaddii caalamiga caalamka ku leh taariikh wanaagsan ayaan qoraynaa maanta nimankaas odayaasha waxaan leeyahay Soomaaliyada maanta ma aha Soomaaliya shalay ama aad madaxweynaha ka ahayd ku meel gaarka ah ama aad ka ahayd madaxweynaha ama aad ka ahayd wasiirka ama aad ka ahayd ra'iisul wasaaraha maanta ma aha Soomaaliya maanta Soomaaliyada taagan waa ka duwantahay Soomaalidaas maanta Soomaaliyada ma aha aan joognaa ma aha Soomaaliyadii siyaasiyiinta inta guryaha loogu dhaco dadkooda guryaha ku jira lagu laayo ee haddana marka la laayo dadkooda meydka laga dhowro loo diiday dulka lagu aasay ma aha maanta qof kasta afkiisa xor u yahay
jasiiradda hotel kala tag barxadda soo istaag intaba aadan amniga shacabka aadan wax u dhimaynin oo aadan qora la cararaynin xoraad tahay horena waa u sheegnay maantana ku celinaya xildhibaanada sharaftalna inay ogaadaan aan rabo banaanbaxaa furan isu imaatanaa furan talaa furan hadalaa furan hadal qof uu ka xanaaqo oo ma ka caroon maxaa ugu daran midka asaga lagu caayo soo maaha maalin kastaa jidka naloo taagan yahay wax aan muxuu ahay ka waxaynayna malaha laakiin qorayaan soo qaadanayaa dadkaan khalqal gelinaynaa waa eraynaa dadkaan qaxinaynaa waa muujinaynaa inaan maxaan ku idhahdaay sharcigu awoodda qoray qaadashada iyo haddiiba waxa lagu fulinayo awoodda qoray wax ku fulinta sharciga dowladdu siiye bas sharcigaana tilmaamaya dowladda lafteedu sida ay rabta maaha sida ay u dhaqan galayso waana iska ilaalinaa inaanan loo baahan marna in aanan siyaasadda aanay noqonin mid qoray daba socdo ayaan dhaweyta maanta maalin weyd ka hadlayaan arkay masawirka xasan shaqo la soo qalqalluuxiyo qorda mashaaraa lagu ilaalinaya dembiyadaas ku dhegso laga fuji maayo xataa xasan shaqo qalqalloocan dembigaas ku dhegsaa daanka laga fujiyo daaya galdhima xataa war waxaan rabnaa dadkeenna muddo dheera afka laga hay maalin dictator military iyo waxay afka ka hayaan maalin oo warlord afka ka hayo maalin ay argagixis afka ka hayso dadkeenna afkiisu waa furan yahay laakiin xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa haddaad hadlayso dheh wax wanaagsan oo tira haddaadan haynina iska aamus laakiin jidka soo istaag fawaaxishta aadda muxuu ahay ka socoto internetka iyo meelaha qaarkood maarata waxaan rabaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan xoogaga siyaasadeed ee dalka in ay ku tartamaan aragti barnaamij siyaasadeed oo qoran oo dadka soomaaliyeed akhrin karaan arki karaan waxaan rabaa in ay ku tartamaan ra'yi cusub ra'yi ka duwan midka annaga dowladda aan ahayn qabno waxaa u furan ra'yiga dowladda inay taageeraan ay yidhaahdeen kan waa fiican yahay markaana intaa la wado waxaa u furan inay yidhahdaan dowladda intaana waa ku taageersannahay intaana waa ku diidannahay waxaa u furan inay yidhahdaan waxa dowladdu ay waddo dhan waa diidannahay kanaan rabnaa bedelkiisa in oo maxaan ku raha lagu bedelo laakiin waxa ka soo haraaya waxa waaye waa wax aad iyo aad u dhib badan waxaan leeyahay ha ku tartamina curyaaminta hay-adaha qaranka ha ku tartamina burburinta kalsoonida shacabka ha ku tartamina marin habaabinta bulshada iyo u adeegidda yani dana shisheeye oo aan mar walba sheegin qaran kasta oo guurista wuxuu leeyahay muxaafid iyo mucaarad laakiin waxaa mideeya waa hal mabda in soomaaliya ay ka weyn tahay qof kasta xisbi kasta iyo dana kastoo gaar ah waxaa ka weyn soomaaliya mabda'aasi hana mideeyo markaan saas soomaaliya u weyneyno waxaan go'aansanay wixii soomaaliya anfacaya inaan ka shaqayno wixii soomaaliya aan anfacayna cid kastoo kale ay anfacayaan aan dhahna raalli ahaada mudanayaal iyo marwooyin inta aanan soo gunaanadin khudbadayda waxaan idinka mahad celinayaa shaqadii baaxadda lahayd ee aad qabateen 7 kalfadhi ee kalfadhigan ka horreeyey waxaan idinka mahad celinayaa dulqaadkiinni waxaan idinka mahad celinayaa dadaalkiinni waxaan idinka mahad celinayaa maalmo badan oo aad u hurteen gudashada waajibaadkiina qaran waqti badan iyo duruufo adag iyo dana aad lahaydeen oo aad ka joogteen ama aad ka hakateen waxaan idinka mahad celinayaa doodihii adkaa ee aad isku dulqaadateen isdhegaysateen markii dambena aad go'aamiseen waxaan idinka mahad celinayaa inaad mar kasta ilaaliseen in go'aanka ugu dambaysta ah lagu gaaro gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ugu dambayntii waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu guud ahaan inugu garab galo gudashada waajibkeenna inuu xoojiyo midnimada ummadda soomaaliyeed in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto inuuna waafajiyo ilaahay cadaalad wadajir horumar iyo dowladnimo waarta waxaan idinku boorinayaa inaad sii wadaan mas-uuliyadda weyn ee aad u haysaan ummadda soomaaliyeed kana dhigtaan kalfadhiga 8aad
iyo kuwa idin harsanba kuwa lagu xasuusto go'aanada dhaxalgalka ah ee sharci tayo leh iyo xaqiijinta haddaba oo fursadda ugu dambaysa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kalfadhigan inaan u hambaliyeeyo oo aan bogaadiyo shacabka Puntland ee u dabaaldegay sanad guurada 28aad maalintii dhaweyto waxaan leeyahay shacabow hambaliyo waxaad ka shaqayseen shacabkaasi waxay u dulqaateen wax badan waxayna ka shaqeeyeen wanaag waxaan rajaynaynaa kuwii nabad ku sii waara horumar sii hiigsada dowladnimadana qaybta weyn ee ay ku leeyihiin ka soo muuqata diyaaliira waxaan rabaa mar kale inaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqo kalfadhigii 8aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa furan yahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.